madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed caalin ayaa qadka taleefanka ku jira waxaa sidoo kale qadka taleefanka ku jira xasan maxamuud xuseen xasan jabuuti oo ah wakiilka gaarka ah ee maamulka galmudug ee bariga iyo bartamaha afrika aynu wada dhageysano waxa ay noo sheegaan waaye inta ay soo galayaan qadka madaxweynaha iyo xasan jabuuti in yar waxa ay la hadlayaan fartuun axmed sahal birimo oo codsatay inay kelmad idin sheegto ama u raxleynaya way rubaan riiqmayo lumay mid kaloona rabinba anigana i raadsho hadba raacda iyo orod igu daba rafaado raadkayga ku ambaday way ka rago doc kale eeg ragaad baa ku go'ana runta iyo wax sheeguni ma raali gali heesaas ayaa kamid ah iyo heestan hadda qaaday way soo baxday laakiin ma soo gaarin meelahan marka insha Allah hadda ayaan maqli muuqaal ku qaban doonaa heesaas wadina habeenka ciid weynta ayaan idin soo bandhigi doonaa caawan waxa idin leeyahay waa idin jeclahay waa aragtida labaad iyo ciid weynta I love you so much galmudug hanoolaad. That's where I come from. I come from Galkacyo Baraxley. I love you guys. way noo joogtaa fartu way noo joogtaa heesa kalena way idin qaadi doontaa haddii aan la idmo oo weliba kuwa aad garanayseen